السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كينا كبcinta garaadka carruurta walaashin raxmo xuseen. Videogan waxaa daba socda videogii ahaa laba ruux oo muhiim noo ayaa naga xanaaqsan. Hadaa soo fiirsatay insha Allah waa ka hadaa fiirsan insha Allah soo fiirso. Marka labada ruux waxay ahaayeen mid waa hooyo macaan midna waa macalinkeena Quraanka. Marka waxaan rabaa inaan WhatsApp group aan sameeyo insha Allah oon ku wada hadalno de labadaas ruux sida loo tababari lahaa aan tababarno sida anako xanaaqin ilaa labadeena waa laba ruux oo muhiim hadayna iika si wanaagsan aan ilmaha iko isdheheenin de wax geersi wax dhibaato u geersiino hadhow waxa dhacaysa ilma oo saan rabin ahayn ayaa soo saareen. Marka labadaas ruux marka laba tibaa raba marka maanta inaan idin siiyo. Number 1 hooyada ku hormar horta maxaa keeni kara hooyada inay mar walba xanaaqsantaa. Marka waxaa keeni kara anaa isleeyahay in hooyada ay daalanta way daalanta guriga dhan hooshiisa ida qabanayso ee waxbarasho carruurta ida ka fikirayso wax walba ida la wax kasta meel dhinac kasta dhaqaaq hooyo way daalanta qof bil aadam way daalanta. Marka hal tib aan ku siinaa marka oo taas ka caawi kara ilaa ana hooyo kula ahay sama halka tib ka caawi kara oo taas isla ka caawi kartaa waxaa waaye adiga daily maalin kasto nus saac sameyso oo adig ku go'an kaliya qofna kula darsan caruur maya wax walba maya telefoon maya wax walba maya kaliya waqti kaliya ku nasatid oo kaliya ahaatid ama waqti oo kaliya ku soo baashash laakiin waqti kaliya sameyso aan kula talaa markaad nasatid xanaaqaadu yaraana. Okay tibka labaad marka aan siinayo macalinka anina macalin kula macalin hada taa macalin maxaa ka xanaajiyo macalin waxa ka xanaajiyo carruurta Quraanka ma raban waxbarasho ma raban ciyaal anagana maxaa rabnaa inaan ilmaha wax barno iyakana ma raban waa xanaaqeena sooma ilaa waxbarasho meeshaan ana waqtigeena soo dhuminay wax niyad fiican la imaadnay waxaan dhahnay ciyaalka Soomaaliya wax baranaa ilmaheena soo saarnayna dadkeena anaga soo saarada mas'uuliyad weyn qaadnay laakiin maxaa la kulanay ma rabaan waxbarashada shiigus niyada ku jabtay sama niyada ku jabtay xanaaq oo kordhaysa markaas marka maxaa marka ka caawi kara macalin inaad xanaaqid oo mas'uuliyadda qaaday oo saytaha u gudubtid oo rabitaanka iyo hamiga kugu jiro inaad dad soo saartid saa ku soo saari lahayd. Number 2 adna hal tib la ku siinaa ma ka badina waa hadaa ka badiyo waxa ka baqaa inay iloobo insha Allah tartiib ku barada ha ka walwalin. Marka number 2 waxa furaysa cunuga qalbigiisa carruurta qalbigooda fur jeclaysi waxa barasho waa inaad jeclaysiisaa carruurteeda ardaydeeda waxaa dhahaa maanta aniga adaa iga fiican waayo saaki markaa soo galaysi galab markaa baxaan maanta adaa iga taajirsanino sababtoo maxaa la dhahaa Quraanka 3 xarfada akhri 30 ajra helaysa sama hay aad maanta meeqa mara ku celcelisa aayadan billion millionaire tahay أنا إيجا في عنتها جانس كاس مهلين هذا إيجا في عن هذا إيجا مليونير سن هذا إيجا قطر سن ما أنت هي كان ساتف إن القرآن كمركة أخريان بق كفكران مليونير نقنا الجراه لنا بالآدم كمركة حيسيس لو به معرته يا وواصح إنه أشيغونا لكن وحين لفهم سياسة صار جعل سنة هذا إيجا في عن هذا ما قمر كويس أنا هلاس لجانس كاس ما بيهلن ولا جانس كاس داهل لها هلك عاد أنت صمرة كويل لها لواتم بقول مرة كويل لها أجر سأهله براي أضاء في عن كو مثل هذا قدر هالحبة قدر هذا تاسو مركن قلب تسيب حين أنت كل جوجا الصبح هذا مركن كوسا قلم عنو قادنا قلبك فر قلبك فر له العادة
dhoola cadee cunuga aragtidiisa ku farax. cunugan waxaa laga yaabaa xalay markuu kaa taga ama shalay galad markuu kaa taga wax fiirsiguu gale hurdaa ku xigta saakuu soo kacay wuxuu soo fiirsaday wuxuu soo akhriiman ama soo akhrisay sidiyaa loogu soo diray inuu dhan asa dhan xirxiran xanaaqsan adiga furfur dhoola cadee aragtidooda ku farax. cunug qofka bilaadanka aragtiis marka waaw hebelaa soo gala ama heblayaa soo gasho maasha allah marka farxad ay dareemaan waxay dareemayaan muhiim inuu yahay qofkaas inuu muhiim yahay. qofka markuu ku jeclaado oo ku jeclaado hadalkaadu maqlaa adiga waxa uu sheegaysana si fudud u gaarsiin kartaa si fudud. laakiin qof oo muhiim ku arkayn oo ku jeclaan wax ma bari kartid. qofka markuu ku jeclaado si fiican maqal hadalka. qofka markuu ku jeclaado ama bili-aada dhan marka ku jeclaadaan waxa rabtaa ku sheegi kartaa. laakiin cunuga hadoona ku jeclaan oo qur-aankan uu necib oo dilkaada un dhibsade wax ma u sheegi kartid. xoog iyo muruqni wax kuma soo saaraysid. anaa kuu sheega hatartaan kuu sheega waa qasaaro waa dembiyaa kaa soo raaca. cunuga adi dartaa diinta hadduu ku naco dembiyaa ku jirta. marka intaa isleenahnay wanaag samee in qasaaro nagu dhacdo waa wax ilaahay aan ka magan galna ilaahay nooma kaso. marka insha allah saas sameeyo groupkaasna kusoo biiro videogaasna saa sheega meel fog hala geeyo. train badana u baahanahna train badana u baahanahna wallaahi. dadkii way naga hormareen adduunyada way naga hormartay. adduunku wuxuu ka fikirayaa sidee cunug yariis oo caloosha ku jiro hooyadiis sidee maskaxdiisa loo koriyaa. anagana cunug weyn maskaxda burus uu garaacayna meesha adduunka ka fikirayaan cunuga caloosha ku jiro hooyada soo cunugaas dhaawac u gaarin hooyada ha loo dadaalo. hooyada maskaxda ha la ilaaliyo oo la wareysanayo hooyada la dhaha haye saa ma darante kan ma darante. anagana cunug weyn burus ku garaacana bal labadaas ruux labadaas wadan intee baa kala joognaa. marka insha allah videogaas meel dheer geey walaalayaalo. wallaahi caawinaad weyna u baahanaan waa idin salaam.